Assalaamu calaykum. Qaabka iyo shaqada beerka. Beerku waa xubin muhiim ah oo ku taalo rubaca dhinaca midig ee qaybta sare caloosha oo ka hooseyso feeraha. Waxay door muhiim ah ka ciyaartaa habab badan oo nafsiyeed oo ay ku jiraan dheefshiidka kiimikeed, soo saaridda borotiinada muhiimka ah. Fahamka qaab dhismeedka iyo shaqada beerka ayaa lagama maarmaan u ah in la fahmo muhiimadda ay u leedahay ilaalinta guud ee caafimaadka iyo fayoobaqabka. Qaab dhismeedka beerka. Beerku waa xubin weyn oo casaan madow xigeen ah oo leh qaab dhismeed gaar ah oo u sahlaya in uu si hufan u guto shaqadiisa. Waxay ka kooban tahay dhowr loobis, mid walbana wuxuu ka kooban yahay kumanaan unug oo loo yaqaano lobules. Lobule kastana wuxuu leeyahay hepatocyte ama unugyada beerka. Unugyada asaasiga u ah shaqada beerka. Beerku wuxuu helaa laba dhiig qoodiyaal ah. Mid waxa waaye dhiigga oksijiin leh oo ka yimaada halbowlaha beerka oo loo yaqaano hepatic artery. Midka kalena waa dhiigga nafaqada wada oo ka yimaado xididada portalka. Xididada dhiiggana waxay ka soo baxaan gudaha beerka, ugu dambeyn waxay soo gaaraan sinusoideska, halkaas oo ay soo gaarayaan xididada gaarka ah oo loo yaqaano capillariska, halkaas oo ay isku wedaarsanayaan unugyada beerka iyo dhiigga. Beel dareeraha dheefshiidka ee beerka uu soo saaro ayaa laga soo qaadayaa iyada oo la marayo shabakad ka mid ah dhuumaha xameetiga, kuwaas oo ugu dambeyntii ku biiraya si ay u sameeyaan common bile duct, kaas oo keenaya xameetiga si loogu keydiyo ama si toos ah mindhicirada yaryar si uu u caawiyo dheefshiidka. Shaqada beerka. 1. Dheefshiidka kiimikeed. Beerku wuxuu kaalin dhexe ka ciyaaraa dheefshiidka kiimikeed oo ay ku jiraan isku dhafka, burburka iyo kaydinta carbohydrateska, lipidiska iyo borotiinada. Waxay sidoo kale nidaamtaa heerarka glucose-ka ama sokorta dhiigga iyada oo kaydisa glucose-ka xad dhaafka ah sida glycogen oo ay sii dayso marka loo baahdo. Intaa waxaa dheer, beerku wuxuu soo saaraa bile acids-ka, cholesterol-ka iyo hormoonnada qaarkood. 2. Sunsaar. Mid ka mid ah howlaha aasaasiga ee beerka waa sunsaarid, halkaas oo ay burburiso ama tirtirto daroogooyinka, khamriga, sunta iyo qashinka dheefshiidka kiimikeed ee dhiigga. Hepatocyteska ama unugyada beerka waxaa ku jira enzymes fududeeya burburinta iyo yareynta walxaha sunta leh ama sunta soo saara. 3. Borotiin samaynta. Beerku wuxuu sameeyaa borotiino kala duwan oo lagama maarmaan u ah ilaalinta caafimaadka guud oo uu ku jiro albumin, kaas oo ka caawiya ilaalinta cadaadiska onkoodka iyo qaadista walxaha ku jira dhiigga iyo arrimaha xinjirowga lagama maarmaanka u ah dhiigga. 4. Kaydinta. Beerku wuxuu u adeegaa sidii meel lagu kaydiyo nafaqooyinka, fitamiinada iyo macdanta. Waxay kaydisaa glycogen ama sokorta, fitamiinada A, D, E iyo K, birta iyo nuxaasta, micnaha iron iyo kubar. Waxayna ku sii daysaa marinka dhiigga marka loo baahdo si loo daboolo baahida dheefshiidka kiimikeed ee jirka. 5. Soo saarista beelka. Hepatocyte ama unugyada beerka waxay soo saartaa beelka oo ah dareere dheefshiidka kiimikeed oo kaalmaysa nuugista dufanka iyo fitamiinada dufanka ku milma ee mindhicirada yaryar. Beelka waxaa si joogto ah u soo saaro beerka, waxaana lagu kaydiyaa xameetiga ilaa inta looga baahan yahay dheefshiidka mooyee. Halkaas ayuu inoo egyahay. Waxaa inoo balana ciwaanka xiga hadduu alla idmo. Khayr badan.